halkani waa afaafka hore degmada Dilay waxaan maanta aan kula kulmay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud ee gobolka Awdal mudane Cabdirashiid Ibrahim Isaaq mudane marka hore waa ku soo dhaweynaya saad la socotaan saaka maxay tahay ujeedka halkan aad u timaadeen bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ujeedada aan halkan u nimid waxa weeyaan gudoomiyahayagii oo gobolka ka daahfuraya daahfurista diiwaangelinta maanta bishu tahay 8 gobolka u doortay inuu yimaado inuu dadka ka wacyi geliyo oo yiraahdo kaarasha qaata ayaan horta u joognaa afaafka hore ina gudoomiyahayagii ku soo dhaweyno Faysal Ali Hussein talabaad gobolkani waa gobolka cadaaradda aqoontii waa la wada bartay dad badan baa yiraahda waa gobolkii aqoonta aanu ma aaminsani sababtoo aqoontii meel walba way gaadhay oo Soomaaliland meel kastiba waxa laga furay jaamacado ardaydu aad bay wax u bartaan laakiin aanu waxaan leeyahay waa gobolkii cadaaradda sababtoo ah gobolkani waxa weeyaan xeeb dhererkeedu leeyahay ilaa intaas ayuu leeyahay dadkan reer Boorama waxay ka yimaadeen asalkoogii hore Saylacna waa wadanka ugu cadaaradda badan ilaa Turkiga marka waxa weeyaan anu gobolkani waxaan aaminsanahay inuu yahay gobolka cadaaradda sababtoo ah waxaan hadda idin sheegayaa magaaladu 100% inay labalaabatay sababta ay ku labalaabatayna waxa weeyaan dadka deegaankan oo cadaaraddoodii Saylac kaashanaya ayaa waxa ilaa hadda u soo hilooba ama had iyo jeer niyadda ku haya inay guriga ka dhistaan Soomaaliya oo dhan inay yimaadaan nabadgelyadeeda cadaaradda dadkoon waxba weydiinayn dadkii qabyaaladii jirin oo oranayn hebelow xageed ka timid hebelow maxaa tahay ummaddu ay ku wada nooshahay ayay ummadii Soomaaliyeed oo dhan arkeen iyo ummadda Soomaaliland marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka waa gobolkii cadaaradda waa Saylac dadkani ay ka yimaadeen asalkoodii hore marka waxaan idin leeyahay kaarka qaata maanta ujeedada halkan aan uga faa'iideysanayna waxa weeyaan bulshadayda waxaan leeyahay dhammaan gobolka Awdal inay kaarka qaataan oo guddiga dhiisha iskaga dhigno oo cadaaradda iyo horumarka aan sheeganayno in aanu kaga dhabayno maanta nasiib wanaag maadaama ay noo soo noqotay diiwaangelintii waxa laga yaabaa inay soo noqon weydo 5 sano kadib sababtoo wax walba maalin walba dalku kuma jirayo soo dhaweyn maxaa doorashooyin mar walba kuma jirayo dalku waxa laga yaabaa inayna soo dhaweyn waqti 5 sanadood kadib inay timaado marka laga faa'iideystaan leeyahay diiwaangelinta waxaan idinku salaamayaa salaata gudoomiyaha aad ka bixin waxaan rabay saan la socono dhawaan xildhibaano ka tirsanaa golaha deegaanka magaalada Boorama isla markaana ka soo baxay xisbiga mucaaradka Ucud ayaa waxay u diga rogteen dhanka ay xisbiga muxaafidka kulmiye adigu maadaama ay tamarkii ugu horeysay aan kula kulannay sidoo aragtaa xildhibaanada idinka diga rogtay wallahi horta waxaan u arkaa wadankii hadda waxa weeyaan dimuqraadiyadii way liidataa waxa weeyaan qabiilkii baa xoogeystay anu sidaan u arko marka waxa weeyaan had iyo jeer waxa weeyaan in qabiilku shaqaynayo Soomaaliland ayaa wali xoog badan laakiin xataa xisbiyadii iyo dimuqraadiyadii inay wali liidato oo dadku fahansanayn marka labada saddexda xildhibaan ee ku dadaalnay tacabka iyo juhdiga gelinay waxa weeyaan ikhtiyaar bay leeyihiin maadaama qabyaalad shaqaynayso waxa weeyaan wadankii hadii nidaamanta jiro ragga waxaanu ka saxeexnay sharci ah nootaayaan ka saxeexnay oo maanta hadii sharciga iyo maxkamadaha la geeyo dhammaantood waa laga xayuubinayaa saddexdaas ee xisbiga ka tagay marka qabyaalad bay ugu tagaan baad leedahay xisbiga muxaafidka kulmiye qabyaalad bay ugu tageen qabyaalad cad weeye oo geed loogu soo gaban weeye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh